waqtiga badan la geliyay ugu horreyn waxaan rabaa maxay ku timid in idaacad jiriiban laga sameeyo wax yar introduction aan ka siiyo jiriiban markii waqti la joogay anigu waxaan ka mid ahaa dad ku soo barbaaray jiriiban deetana boosaaso iyo gaalkacyo meelaha marar kaga maqnaa markii dambe aan jiriiban u soo wareegay waxaan arkay baahi badan oo ka jirta oo dhanka warbaahinta ah degmada jiriiban waxaan la wadaagay dad badan oo akhyaar ah waxaan la wadaagay saaxiibo badan fakar baan isdhaafsanay waxaana muuqatay in idaacad loo baahan yahay waxaan bilownay inaan tilaabo qaadno sidii idaacad degmadu u yeelan lahayd waxaan naga hor yimid marka qaadista aan qaadaynay caqabado badan oo ku salaysan faham la'aanta markaa ka jirtay deegaanka ee dhanka idaacadda ah isku daygeennii waxaan ka bilownay inaan dhaqaale aruurino marka hore maadaama uu laga maarmaan yahay waxaan ogaanay markaas annaga ka horteen marka annagu aan shaqada bilaabayna waa 2016 waxaan ogaanay 2014 annaga ka hor dhalinyaro wadaada oo isxilqaamay inay iyagu laftirkooda isku dayayeen inay sameeyaan idaacad diini ah oo degmada ka shaqeysa wadaadada wayna isu tagnay dhalinyarada ahaa dhalinyarada December isma fahmi weydo waan isla qaadanay inaynu degmada ka wada sameeyno idaacad diintana u shaqeysa dadkuna ay wax ka faa'iidaan waxaan isku darsanay xoogii iyo maalkii anagu aan keenay ka bacdina waxaan yagleelay idaacad la yiraahdo radio jiriiban idaacadda yagleelideeda wax badan baa naga soo gaaray hadda gudoomiyaha degmada jiriiban oo hadda goobtan fadhiya maalmaha kamid ah idaacaddu horta way xirantay waxayna u xirantay idaacaddu waxay kamid tahay idaacaddan hawsheeda u bannaan noo hayay intii aan yagleelnay sida uu sheegay waxay ahayd fakarro ka yimid dhalinyarada degmada jiriiban oo arkay in ay degmadu qabto waxa la baahi warbaahineed dhalinyarada hadda markii dhalinyaro la yiraahdo dadku waxa u yaqaanaan group gaar ah laakiin waxa macquul ah qofkii isagoo dhalinyaro ah tatala kala inuu wato hadda dabcan ragii marka hore ku fakarayay waxay ahaayeen awalan mintisaada lahaa rag culumaa bay ahaayeen dhalinyarana waa ahaayeen oo markii dhinac laga eegay rag dhalinyaro ay tahay ahaayeen haddana waxay wateen title-ka ama magaca culimada ayay wateen raggaas sida farxan buu sheegay 2014kii baa fakarkeeda ku dhashay rag qurba joog oo deegaanka u dhashay bay la dhilgareen arinteeda in ay arintaas ay ka qaataan qayb weyn runtii mahad ka gaadhay raggaasi dowrkii laga filayay bay ka qaateen waxaan ka magacaabi karaa raggaasi sheekhi degmadan shuyuukhdeeda ka mid ahaa ee la oran jiray sheekh cabdi hanuun oo hadda markuu xagga qurbaha u wareegay la baxay cabdilhaadi cali kulmiye idaacaduna midii khayr leh ilaahay ha ka dhigo khayr noqon doonta qolqolaata iyo ummad iyo heble iyo midna aan keenin ee lagu faa'iido ilaahay ha ka dhigo anigu hadalka maqrib weeye waxaan ku soo gaabinayaa idaacadu waxa weeye shayga nolosha ay ka mid tahay haddii sida ay tahay oo daacada loogu shaqeeyo galabta waxa ka dhacay munaasabadaas oo ah xil wareejin oo lagu wareejinayo idaacaddii culimadu haysay degmada jiriiban runtii intay hayeen ay guulo waaweyn ka gaareen waxaynu ku wareejinayaan maamulka degmada jiriiban oo u horeeya gudoomiyuhu waxaan rajaynayaa idaacaddaas inay noqoto mid dhexdhexaad ah oo hadda waxa lagu adkeeyay in wacdiga laga soo daayo waxaan ku faraxsanahay in aan maanta shirkan ka soo qayb galo qiimaha weyn noogu fadhiya oo macnaha dadka koofiyadiisina isugu timid aad baad u mahadsantihiin waan idin mahadcelinayaa ka soo qayb galayaasha maadaama halkan maanta la yiri waxa lagu wareejinayaa idaacaddii degmada jiriiban oo in badan ka fadhiday horena aanu macaankeedii u dhadhamin waa maaragtay khayr noo soo kordhay saxaafadii oo maaragtay awal dansanayd oo hadda maamulku maaragtay uu furay waa ilaahay wax loogu shukriyay way ilaahay ugu shukriyay nimcada waa mubalaq maaragtay saxaafadu waxa laala wixii maaragtay wanaaga oo maaragtay la fidinayo waa maaragtay waxay ka qayb qaadanaysaa qayb weyn bay maaragtay qaadanaysaa wixii wanaag oo la sheegayo taawunu cala albirri wattaqwa wala taawunu cala ithmi wal udwan waxay maaragtay tilmaamaysaa taawunka sida la isku kaalmaynayo ay maamul tahay haday shacab tahay idaacadda sida looga soo sheekeeyay waxa soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxay runtii ku tilaabsatay
arrin aad muhiim u ah markii u dambeysay waxa laga dhageysanayay deegaanka degmada Jiriban qiimo ka mid oo aad u ballaaran waxa fahmay dadkii waxay ka qayb qaadatay wax tiro badan oo shakhsi iyo isugu jira hawl guudba waxay ku socotay habsami u socod aad u wanaagsan oo qurux badan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii idaacadan sababta u ahaa degmada inay timaado rag iyo dumar wariyaal culumo dadkii kala duwanaa aad bay u mahadsan yihiin marka labaad bulshada reer Jariiban idaacada ayaga leh idaacadana reer Jariiban ayaga waxa la rabaa in ay yaani supportkeeda taageeradeeda inay gacan ku haynteeda insha Allah maamulku gacanta uga hayn doona wariyaasha ka hawlgala degmada insha Allah iyo maamulka iskaashanaya ayaa ka wada hawlgali doona haddii Allah idinka dhigana shirkan ahayn iyo warqadgoyn shaqo oo agaasimaha idaacada insha Allah ayaan idin soo bandhigi doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa idaacada Daljir oo ugu horeeyo jaamac Abshir Waldo oo aan wada hadalay oo hadda ragga maanta halkan jooga runtii injineerkii Saciid Alteeno iyo ninka la yiraahdo Madar markii aan la hadlay oo aan wada hadalay runtii si hagar la'aan ah bay maartay ajiibeen ay halka u yimaadeen jaamacna markaan wada xiriiray wuxuu runtii soo dhaweeyay idaacadan hore ay u ahaayeen rag wada shaqeeya haatana uu joogo wariye Farxaan iyo damcan jaamac oo hore dadkii hawlahaas xogaalku ah inuu aadna u soo dhaweynayo wixii taageero ama kula faraxsan yahay degmadii idaacadii in dib loo kiciyana uu qayb weyn ka qaadan doono aad iyo aad buu mahadsan yahay asaguna runtii wariyaasha ninka la yiraahdo Farxaan iyo Cabdi Khayr iyo Sheekh Ahmed iyo rag gacanta ku hayay aad baad mahadsantihiin idaacadii galabtay maamulkan cusub waa la wareegnay waxaana rabnaa in sidii gacanta ugu hayseen idaacadii aad noqon shaqeysaan oo aad noola haysaan insha Allah fadhiga kan ahayn baan idinku yeeri doonaa cidii agaasimaha idaacada maamulku u magacaabi doono iyo cidii kale oo sida agaasimaha ayaa gudiyadeeda iyo qorsheynteeda insha Allah noo diyaarin doono